kulan waana wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah kulanka madaxda midowga Afrika ayaa Soomaaliya iyo Itoobiya loogu kala garqaaday iyadoo Soomaaliya iyo Itoobiya ay halkaasi hanjabada culus hawada isku mariyeen sidoo kale hay'adaha amniga ayaa u diiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ururnimadii hore ee maanta inuu gudaha u galo shirka madaxda iyadoo halkaasi ay ka dhalatay dood iyo muran iyo gacan qaad aad u badan ciidamada dowladda Itoobiya ayaa weerar ku qaaday saraakiisha la socday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale midowga Afrika ayaa doortay gudoomiye cusub oo ka soo jeeda dalka Mauritania iyadoo loo doortay Maxamed Axmed gudoomiyaha hogaamin doona midowga Afrika sidoo kale Muuse Faki ayaa gabi ahaanba kursigiisa baneeyay dagaal culus ayaa wali ka soconaya gobolka Axmaarada iyadoo xogaga faana ay soo saareen warmurtiyeed ay ka codsanayaan shacabka deegaanka Axmaarada inay ku soo biiraan dagaalada culus ee ka soconaya gobolkooda afayeen hadda xogaga faana ayaa sheegay inuu dagaalku gabagaba yahay mar aan fogeyn inay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay sharciga hor keeni doonaan dagaalkuna uu ka socdo deegaanka aad u ballaaran dalalka Eritrea iyo Masar ayaa gabi ahaanba ka soo qayb galay shirka madaxda midowga Afrika iyadoo Eritrea iyo Masar ay gabi ahaanba ku gacan saareen kulankaasi qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah Somaliland khilaaf aad u weyn ayaa ka taagan xildhibaanada laga soo doortay Awdal State ayaa gabi ahaanba kulankii maanta iskaga baxay iyadoo Muuse Biixi Cabdi uu sheegay xildhibaan kasta oo taageeri waayay mowqifkiisa iyo rabitaankiisa doorashada habsami socodkeeda in xabsiga loo dhaadhicin doono oday dhaqameedka ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ayaa sheegay in wada hadal la galo xogaga SSC Seylac deegaanada Seylac iyo kuwan kale hadda la ascaaroodna gacanta Somaliland lagu soo celiyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay gala qayb galaya saaxiibkay gooni oo soo dhawow warkeena ayaan guda galaynaa shirka midowga Afrika waa u dhacay maanta shirkaasi wuxuu markii warsa kulmay shirkani wuxuu ahaa shir si weyn isha loogu hayay madaxda ugu badneed qaaradda Afrika ayaa maanta ka soo qayb gashay ugu yaraan waxa ka soo qayb galay 35 madaxweyne ayaa ka soo qayb gashay qaaradda Afrika gudoomiye cusub la doortay Soomaaliya iyo Itoobiya labadu halkaas way ka hadleen waxaan ku horeynaa wafdiga Soomaalida saaka ururnimadii hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa la Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa uu hogaaminay hay'adaha amniga ee ciidamada Itoobiya ayaa hor istaagay shirka inuu galaan loo diiday ilaa muran kadib waa loo ogolaaday markii dambe inuu galo iyadoo halkaasi saraakiishii dowladda Soomaaliya loo gacan qaaday maxaa halkaas xokaynaa sidoo ma santahay horta hal meel rabo inaan ka saxo ma tiraaday Seylac in gacanta Soomaaliya lagu soo celiyay Seylac gacanta Soomaaliya ku jirta laakiin waa gobolka Sool meesha ay rabaan gacanta soo celiyaan arinta waxaan u galeynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in loo diiday ayaa la sheegay inuu ka qayb galo shirki waliba hoolka lagu shirayay inuu markaasi askarta ay hor istaageen marka madaxweynaha waxay dhaheen amar uma qabno inaan ku sii deyno dowladda Itoobiya ayaana go'aankan gaartay inaadan gudaha galin waxaana hadiyad loo geystay dad asaga la socdo wufuud ah oo isku day inay gudaha soo galeen intii aan warka in ka maqalnay waa naga inta laakiin wax kale oo dheeraad ah iyo gacan ka hadal dhaxmaray iyo dhibaato loo geystay dadka asaga la socday midna anaga cadeen uma hayno laakiin in loo diiday markii dambe wada hadal kadibna loo ogolaaday gudaha inay galeen intaas ayaan ka warqabnaa shidow wixii kale oo ka soo kordhaa shirkana gooni ayaan faahfaahinayna duleera hadda qodobkaasi wax kugu daro arintu aad bay u adkeyd baa la yiri xataa waxa la sheegayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa inay khatar weyn hadda wajahayaanba oo habeennimadan caawa laga yaabo la leeyahay in la weeraro sababtoo Itoobiya dabeecadaheeda waa naqaanaa xeer iyo shuruuctoona maartay ma qadariso hadda warbaahin adsa wax ku qorisay waxay leedahay madaxda Soomaalida khatar waxay ugu jiraan hay'adaha amniga dalka Itoobiya in xarumaha ay degan yihiin weerar lagu qaado iyadoo amniga madaxweynaha aad loogu baqayo xaaladaasi ka war hadii Itoobiya madaxweynaha iyo dadka la socdo ay waxyeelayso والله wax walba horta waa dhici karaan laakiin caalamku ma ogolo dad macnaha in la iska weeraro ama madax ka soo qayb gashay kulan inuu dalka weeraro dalka ay ceeb u tahay Itoobiya hadii ka xishoon weysay madaxweynaha Soomaaliya markaasi martida uu yahay kuma muusto hadii ka xishoon weysay oo markaasi dhibaato u geysato waa qalad shuruucda caalamiga ma ogolo marka way dhici kartaa in madaxweynaha la dhibaateeyo laakiin
mas-uuliyadda markay adiga ku saaran tahay waxaa la rabaa inaad xishootid wufuud badan oo afrikaan ama Yurub ama reer galbeed ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa shirkanna waxaa loogu talagalay in markaasi waxyaabo badan looga hadlo oo ay kamid tahay arrimaha geeska iyo xil wareejinta dad kamid ah dadkii hore u hayay xilka midowga Afrika marka ma jirto sabab Xasan Maxamuud ee ku weeraray Ethiopia hadii si loo fiiriyana hadii lacala weeraraan madaxweynaha dhibaato u geystaan markaas shuruucda colaad waa ka sii daraysaa Ethiopia waxba uma fududaanayaan in kiiska badda u sahlanaado ama Saylac dekedeeda ay qaataan hadii madaxweynaha Xasan Maxamuud weerar ama hadii dilaan xataa waxba uma soo kordhayaan isbedel Soomaaliya isma bedelayso madaxweynaha Soomaaliya waa run madaxweynaha Soomaaliya inuu matala laakiin hadii lacala Xasan Maxamuud ay ku dhibaateen ama ay dilaan xataa madaxweyne kale imaan doono kiiska meesha ku socona Ethiopia waxba uma soo kordhay wax ka sii fogaado moogi marka colaadda una sii kordhinaysa dhig karna hadii ku xadgudbaan madaxweynaha waad maadsantahay Gooni sidoo kale shirka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweyne Xasan ba shirkan way ka hadleen ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu codsaday in la taageero Ethiopia rabitaankeeda ah badda inay tagayso wuxuuna yiri waxaan rajeynayaa madaxda qaaradda Afrika inay nagu garab istaagi doonaan rabitaankanaga inaan nuqul badeed helo ama goob aan maartay anagu aan gooni u leenahay oo dekad ah inaan helo qaaradda Afrika adduunkuna wuu ogaabay Ethiopia inay muddo dheer ay caalamka u gudbinaysay baahida weyn ay u qabto in ay maartay ay bad hesho maantana inaan hayno biir maartay saansaantii ama maartay wadadii aan ku heli lahayn inuu wax badan noo ifayo wada socotaan biir xogta Ethiopia ee dhanka badda hadda cidna kama qarsoona biir warbaahintan waad ka aragteen biir shirkeenana waxay kamid ahayd buu yiri meeshu ka sheegay inay Ethiopia ay codsigeeda ay madaxda qaaradda Afrika ay u weydiisato codsi ah in la taageero marka waqti xaaladaasi ay socotay waxa la leeyahay madaxweynayaal badan oo qaaradda Afrika ah oo hadda aan ahayn dalalka maartay bariga Afrika ama geeska Afrika ama dalalka Ethiopia dariska lahayn madax badan baa waxay dhaheen baa la yiri rabitaanka Ethiopia waa dalku maadaama dal aad u koreeyay yahay oo tiradiisuna ay badanayso waa arintaas waa arin loo baahan yahay dad badan baa u sacabeeyay baa markii ma nagu taageerteen madax badan baa sacabaysay baa la yiri oo meesha fadhiday iyo diblomaasiyiin meesha ka soo qayb galay oo ku qaramada midowga badan ayaa sacab baa loo garacay markii la yiri Ethiopia ma ku taageerteen barnaamijkaas marka Ethiopia waxaad moodaa inay ka go'an tahay hawsheeda hadduu shirkan hadda soo gabagaboobana Ethiopia waxa la waxa la sugaay kaliya waa talaabo oo kaliya oo shirkan waa shirkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ay codsi ku dirsatay sababtoo tahay qaaradda Afrika oo dhan ay codsigan u dirtay oo meesha iskugu timid oo la weydiinayay taageer Ethiopia ma haysan marka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markuu hadlayay asna carab badan ba ka muuqatay oo xataa hor istaagii shirka inuu ka soo qayb galo lagu hor istaagay ayaa carab badan ka muujinay wuxuuna yiri Ethiopia wayna handadaysaa wayna weeraraysaa dhulka naga way rabtaa colaad iyo dagaal ayayna rabtaa buu yiri Xasan wuxuu halkaas ka muujiyay dhibaatada ay maartay Ethiopia dalkiisa iyo dadkiisa ay ku hayso iyo rabitaankeeda ee baddaas iyo haddana handadaada socda inta ay soo joogan inuu amnigoodu uu khatar uu ku jiro marka waxaad moodaa xaaladdu inay sidaadkan barnaamijku waxa ugu soo biiray saaxiibkay bidhaan uu soo dhaw waxa u dambeeyay qodobada soo dhacay wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay hadda ay qirtay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay inay bahdil xoogan ay kala kulmeen ciidanka dalka Ethiopia gaar ahaan waliba waxay sheegeen in madaxweynaha hadda uu joogo garoonka Booli ilaa 50 daqiiqo inuu fadhiyo xerada meesha VIP-da loo diidan yahay xitaa in uu ka baxo rabay way u diidan yihiin hadda ka horna isbuucii hore waxa la sheegay markii ay tageen wafdigii